waxaa ku dagaalamay laba beelood oo walaalo ah inta u dhaxaysa Garissa County iyo Wajir County oo ka wada tirsan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Labadan beelood ayaa waxa ay ku kala dhaqan yihiin deegaanka Lagdera oo laga soo doorto Faarax Macalin oo ah gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalka Kenya iyo Habaasweyne oo laga soo doorto Xildhibaan Maxamuud Siraad Dayo. Dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii ay ku murmeen tuulada Aqal Aar oo xuduudda labada deegaan ku taala, taas oo sababtay markii dambe gacanka hadal. Dadkii dagaalada ay dhaawaca ka soo gaareen oo la gaarsiiyay isbitaalka Habaasweyne ayaa waxaa isbitaalka ku booqday Maxamed Cabdi Afey oo ah xildhibaan si magacaabid ah ku soo galay baarlamaanka isla markaana deegaanka Habaasweyne ka soo jeeda. Wuxuu ku eedeeyay in dhibaatada dhaawaca dadka soo gaaray ay geysteen dad dawladda ka tirsan oo deegaanka Lagdera ku sugan sida ciidamada madaniga iyo jiifafka. Ngomba washikwe because wanajulikana. Hawa ni wafanyakazi wa serikali ndio wamefanya hii kitendo. Home guards, chiefs. Waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dadkii dhibaatooyinka iyo dhaawacyada ka soo gaaray dagaalka, waxayna sheegeen in dhaawacintiisa badan ay xabada ka soo gaareen. xabadana lagu leeyahay xabad. Qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan deegaanka Habaasweyne ayaa sheegay in ay ka xun yihiin dagaalada isla markaana ay ugu baaqayaan dadka walaalaha inay dagaalada joojiyaan, wax walbaana xal iyo wada hadal lagu dhameeyo. Waxaa sidoo kale baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha culimada Lagdera qaasatan magaalada Radhaab. qaaliga magaalada Radhaab Sheekh Maxamuud Sheekh Cumar ayaa ka mid ah culimada baaq nabadeed u diray. oo haddana ayagii liska kale laayahay taasa waxay noqotay mashaqo taagan, taasa waxay noqotay wax maartay jawaab fiican loo waayo. marka insha Allah taala waxaan dadka muslimiinta ah ee af Soomaaliga ku hadlaya khaas ahaan luqadayda fahmaya waxaan ugu baaqi lahaa in ay fahmaan nabadiinada macnaheeda. markii nabada la helo aarada la isdhaafsan waxa la ogaan ruuxa wixii ku jiro, adiga waxa kugu jiro, ninka kale wuxuu aaminsan yahay. waxa laga yaabaa wax aad khalad u fahamsan tahay inay sax noqdaan, wax ruuxaas kale uu khalad u fahamsan yahay inuu ku qanco yaa laga yaabaa. laakiin haddii marba ay noqoto mid ku taag anaa saxda haya, anaa ka maartay wanaagsan, kadalika dadka hadda maartay isku khilaafsan muxuu ah suudimahi iyo waxyaalaha oo maartay isticmaalka u xadeeyay oo kale. hadii ninkii nin muslima dila waxa way oo naftiisa gooya لا شك قولك إلهي وكسفوبي إلهي وحده سبحانه وتعالى أسوه نقرين إنه القرآن كان si kastaba ahaatee wadanka Kenya oo sharci cusub oo dastuur ah qaatay kaas oo wadanka ka dhaqan gelinaya 47 county oo maamul degmooyin ah. dalka guud ayaa waxaa soconaya dagaalo xuduuda county u dhaxeeya beelaha iyadoo uu ka jiro Tana River, Mandera, Moyale, Wajir iyo Lagdera. Maxamed Ciise, Home Cable TV, Radhaab.